soo dhiibatay uguna tala gashay ciidamada Soomaaliyeed gabar kamida muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka Xawo Cali Axmed ayaa lagu magacaabaa waxa ay sheegtay in ay ku taageerayso ciidamada maadaama howlgallo iyo khawaarijta dagaalkooda hadda uu socdo marka waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb Nuur Cilmi Maxamed taliya soo dhawow adiga mas'uuliyiinta kale ku sii wareejin doona taliyaasha kale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا سراكيشة iyo asxaabta kale ee bahda saxaafadda dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadka Soomaaliyeed oo dareenkaas qaba in ay garab istaagaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii ku hawlan har iyo habeen inay ka hortagaan cadawga gaargaabiyo ummadda Soomaaliyeed si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa gabadhan walaasheen oo joogta Xawo Cali Axmed oo joogta Mareykanka oo runtii iyadoo awoodda inay isaga raaxaysato meesheedaas ay joogto haddana garawsatay deegaankeedii iyo dalkeedii iyo meesha ay ka soo jeeday dhibaatada iyo waxa ka jira cadawga ku haayo haddana garab istaag u muujisay ciidamada qalabka sida oo runtii har iyo habeenba ku howlan howlaha horumarinta nabadgelyada waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo marka hore marka xigta waxaan leenahay waa mahadsan tahay waxaan kaaga mahad celinaynaa runtii inaad soo xasuusto oo garab istaagto ciidamada qalabka sida oo ha yaraadaan ama ha badnaadaan qof walba Soomaaliya hadii uu dareenkaas uu qabo asagoon waxba bixinaan runtii inaan uga mahad celinaa ay tahay laakiin hadda ayadu waxay bixisaba waa xoolo waaweyn runtii markii loo fiiriyo hal qof oo 3 neef oo geela inta soo iibiyay soo xasuustay ciidamada wax weyn waa ayaa la dhihi karaa waa mahadsantaan leenahay Xawo Cali Axmed oo runtii garab istaag u muujisay ciidamada u mahad celinaynaa waxaan leenahay aakhirana ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo adduunkana waa sharfan tahay meeshaana kugu xasuusanaynaa qalbiyada kugu haynaa runtii qalbiyadeena waa ku dhex noolaa doonta insha Allah waxaadna kamid tahay xubin u taagan difaaca qarankaadna nooga dhiganta aad iyo aadna ugu mahad celinayaan runtii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo taliyaha booliiska iyo dhalinyarada hawshan ka shaqeysay waa mahad ilaah waxaan u sii mahad celinayaa Xawo Cali Axmed oo jirta dalka Mareykanka ka qayb qaadatay ciidamada qalabka sida howlgallada ay ku jiraan laguna la dirirayo khawaarijta iyo kuwa dalka iyo dadka manaafeeyay ee arxamlayaasha ah gabadhaas waxaan leeyahay jazakallahu ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo inkastoo oo dadku ay dad badan ay ka geysteen gacan weyn ka geysteen laakiin gabadhaas kaligeed ay maanta ka qayb qaadatay 3 geel oo maanta joogta waqtigan joogta ayaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo meesha joogtana ku ilaaliyo iyada iimaankeeda iyo diinteeda iyo ilmaheedaba ma sha Allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan siisilayahay halaga qayb qaato hawlgallada balaaran ee la wado oo lagu wado khawaarijta dadka Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed ama inkasto ay culimada diinkaba laga qayb qaato hawlgallada lagula jiro khawaarijta ee aan xorriyasha ee dadkii iyo dalkii iyo dhalinyaradii iyo odayaashii intaba ama gowracaya ama laynaya intaas baan hadalkay ku soo gabagabaynayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda waxaan wareejinay 3 geel ahayd waxaan ku wareejinay taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka magaalada Dhuusamareeb iyo taliska qaybta 12aad waana ay u mahad celiyeen waana u duceeyeen Xawo iyo awlaadeeda iyo hantideedaba in Allah u barakeeyo waana ay mudan tahay run ahaantii in dadka Soomaaliyeedna waxa loo baahan yahay sidaas inay ciidamada u soo garab istaagaan maadaama dagaalka argagixisada lagu jiro si xawli ah gobolada Soomaaliya uga socdo qof walibana wixii karankiisa uga qayb qaato dhamaantiina waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaad ku dayo doontaan ummadda Soomaaliyeed